dugsiyada al-irshaad school. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي عبد الرشيد iyo mar kale barnaamijkeeni al-irshaad online educational program ee iskuulada al-irshaad primary schools. Classes-keenu maanta qaadanana waa grade 6, maadadan waa science. Haddii chapterkii casharkii ka horreeyay waxaanu kusoo bilownay chapterka 9aad oo ah electricity. Marka casharka qaybtiisii qaybtiisa koowaad horeynu usoo qaadanay. maantana electricity-ga qaybteedii labaad ayaynu barananaa. qaybteedii labaad baynu barananaa insha Allah oo ah electric current. Marka casharkii hore waxaan kusoo baranay electric circuit waa maxay. Sidoo kale waxaan kusoo baranay simple electric circuit. waxa kale aynu arday kusoo baranay classkii kan ka horreeyay waxa weeyaan safety devices-ka loo baahan yahay ee kolka electric equipment la adeegsanayo in la haysto. waxaan si gaar ah usoo baranay fuse-ka. what's fuse baynu kasoo jawaabnay. sidoo kale fuseska meelaha la geliyo iyo sida u shaqeeyana soo sheegnay. marka maanta waxaan baranaynaa haddii ay baydno electric current. electric current-ku ardayow waa flow of electric charges through a conductor. haddii layna weydiiyo waa maxay electric current, waxaynu odhanaa waa flow of charges through a conductor. waa qulqul danab koronto oo dhex maraya gudbiye. qulqul gudbiye ayaynu ugu yeedhanaa electric current. waayahay electric current is abbreviated sumada I xarafka I oo capital letter loo soo gaabsadaa. sumadaasaa loo soo gaabsadaa waxa weeyaan electric current. electric current-ku waa measurable quantity, waa wax la cabiri karo. macnaha waxa weeyaan cabiraad geli kara weeyaan. The SI unit waxa weeye systematic international unit oo waxa weeyaan loo soo gaabsado of electric current is ampere oo loo soo gaabsado A capital. ampere oo loo soo gaabsado A capital. halbeega la qaato si loo cabiro waxa weeyaan current-ka waxa weeyaan halbeeg magacaas laga soo gaabsaday ampere oo ah A capital. Ampere was the name of French scientist. waa magac waxa weeyaan uu lahaa nin saynisyahan oo Faransiisa who discovered kaas oo iqtiraacay ama hindisay electric current. ninkii markaa hindisay electric current-ka jiritaankeega ayaa magacyadiisa uu ka mid ahaa ampere. marka halbeega lagu cabiro current-kana waxa weeya waxa loo soo qaatay magaciis ninkaas iyadoo sumada A capitalna loo soo gaabsanayo. electric current is measured by an instrument called ammeter. electric current-ka waxaynu yidhi waa measurable quantity. marka device-ka lagu cabirana waxa la yidhaahdaa ammeter. ammeter ayaa la yidhaahdaa. ammeteriska lagu cabirayo electric current-ka are connected in a serious manner. waxaa loo xidhaa ama loola xidhaa qaab waxa weeyaa serious macnaha qaab sunsuna oo la siman to the laambada ama other converters shayada kale korontada lagu isticmaalayo. macnaha ay safku wada jiraan oo serious ay isku wada yihiin. serious manner waxa weeyaan xadhigga meel ay kaga wada jiraan oo korontadu wada dhex marayso. okay. marka ammeterkii lagu cabirayay current-ku waa inuu yahay mid si serious ah ula xidhan laambada ama shayga kale korontada ku isticmaalayso. marka casharkeena maanta arday waxaynu ku baranay what is electric current. waxaynu waa flow of electric charges through a conductor. waa qulqul danab koronto oo dhex maraya gudbiye. waxaynu nidhi electric current-ka waxaa loo soo gaabsadaa abbreviated sumada I capital ayaa loo soo gaabsadaa. electric current waxa weeyaan kolka la sheegayo waxaa la yidhaahdaa electric current-ku waa measurable quantity, waa wax la xisaabin karo. okay. SI unit-ka macnaha systematic international unit halbeega caalamiga ah ee electric current-ka loo soo gaabsadaa lagu isticmaalaa waa ampere.
oo loo soo gaabsado A capital. Marka Ampere was the name of French scientist. waa magac waxa weeyaan laga keenay nin Faransiis oo saynisyahana who discovered the electric current, kaasoo ikhtiraacay ama hindisay electric current. Electric current-ka waa la cabiraa baynu nidhi iyadoo la isticmaalayo instrument loo yaqaano ammeter. qalabka lagu cabirayo electric current-ka waxaa loo xidhaa ama lala xidhaa shayada korontada lagu isticmaalayo si serious in a serious manner, macnaha qaab la siman baa loo xidhaa. waxa weeyaan circuit-kii waa inuu ku wada jiraan isagiyo laambada ama shaygii kale korontada ku shaqaynayay. waxa weeyaan ardayda waxaa idinka soo jawaabay exercise-kan haddii aad baydmo. marka electric current define garee what's electric current ama define electric current. sidoo kale waxa weeyaan componentska simple ayaa idin soo sheegi oo simple electric qaybihiisa ayay idin sheegi doontaan. waxaad sheegtaa 3 safety items, 3 shay oo badbaad ahaan loo isticmaalo oo found in electric circuits oo laga helo mareegta korontada ama other electrical device ama qalabyada korontada ku shaqeeya. waxa weeye su-aasha afraadna define garee current. su-aasha u dambeysa what kind of instrument qalab nooceeya is used for measuring electric current ayaa loo isticmaalaa in lagu cabiro qulqulka korontada. qalab nooceeya ayaa lagu cabiraa. electric current ayaad define garayn ardayow. qaybuhu ka kooban yahay simple electric circuit ayaad soo sheegi oo qaybihiisii simple electric circuit-ka waxa weeye mareegta fudud qaybaheegii baad sheegi. 3 item oo loo isticmaalo badbaad ahaan in electric circuits ama other electrical devices waxaad define garayn doontaa ardayow current. sidoo kale instrumentka loo isticmaalo electric current ayaad soo sheegi doonta. classkeena maanta halkaas ayaynu ku daysanaa. insha allah waxaan rajeynaya inaad xiisada fahanteen kana soo shaqayn kartaan exercise-ka aan idiin diray. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dugsiyada al irshaad school